haddii xirsi caawa deragu habar jeclo waxay u qaadanaysaa arrintaa xukuumadda ka mas-uula jiif caaqil ahaan anigu waan u fadhiyaa wixii qadaf ah ee hantigiisa gurigiisa niyo hargeysa waa la gubay oo gurigiisa niyo hargeysa taayira lagu horsada kan gol jannana gaaraa la jigsiiyey waxaan idiin sheegayaa reer hargeysa anigu kelmad cad baan idiin sheegayaa waxaa reer hargeysa xirsi guddoomiyuu yahay asxaabta qaranku waa hanti qaran guddoomiyahaasu xaq wuxuu leeyahay gobol kasta muwaadil buu ka yahay laakiin waxaad moodaa barnaamijka la yidhaaho hargeysa muwaadil kuma xisyow inuu socolayo maalinkan maantaana xisbiga qura ee ay beeshaydu guddoomiye ku haystaa waa xisbiga waddani haddii xirsi caawa deragu dhinto waxa weeye habar jeclo waxay u qaadanaysaa in arrintaa xukuumadda ka mas-uula war dawladdu xirsi ha ilaaliso xirsi xaq wuxuu leeyahay xirsi siyaasad buu fidilayaa laakiin nabar mis waxa weeyaan aniga way og tihiin anigu siyaasantaydoo dhan dax baanu ahay mid walbana waxbaa la doonayaa anigu madaxweynaha jamhuuriyadda kelmaddaan maanta u gudbilayaa waxa weeye ee aan doonayaa inay naga dhaxayso aan ku wada dhaqanno war politician kasta madaxweyne oo beeshayda ka midii waxaa iga saaran xil faa'iidadiisa siyaasadeed iyo nabadgelyadiisa laakiin xisbiga kulmiye mu'asasiintiisii baan ahay isagaan weli ahay salugna kama qabo laakiin waxaan leeyahay arrinta xirsi war xirsi annagu waxaan noo aragnaa in xukuumaddu aan xiliska saarin nabadgelyada hantidiisa sharaftiisa iyo nabadgelyada hantidiisa war waxaanu xukuumadda xaq ugu leenahay in nabadgelyada hantidiisa iyo sharaftiisa iyo nabadgelyada naftiisa annagu uma baqayno xirsi in cid bini aadani wax yeeli karto ma aaminsanin isna nin baqaya maaha laakiin kelmaddaannu ka hadlaynaa waxaa weeye war haddii caawa xirsi dawlad shisheeye disho yaa dayacay dadku waxay u qaadanayaan in xukuumadda somalilan dishay waxaannu idiin sheegaynaa ninka ku doonayaa kabtaadu iskaga kaa taagaa si adag baan anigu idiinla hadlayaa xisbigaygaan runu sheegaya xukuumaddaydaan runu sheegaya jiif caaqilkii habar jeclaanna afkiisa ku hadlaya waxa weeyaan war dawladdu nabadgelyada xirsi iyo sharafta xirsi yaanay ku duulin laakiin siyaasadda xirsi xor bay u tahay inay ku duusho